wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkeennan oo haddana ka gaadhay kaysar wasiir ku-xigeen iminka aynu eegno kaysar iminka waa wakiilka somalilan ee midooda yurub kaysar marka hore maalin wanaagsan kaysar waxaad ka warrantaa marka ugu horreysaa intaynan diblomaasiyaddii hawlaha gelin bal reediyo hargeysa ayaad maanta timi markii isbuukii dambayseed airportka noo joogtayna timacadaynu joognay bal maanta ka warran idaacaddii ugu horreysay ee afka soomaaliga ku hadasha oo aynu xeradeedii joogno sidii aad nagaga dhuftay iyo saaad maanta ugu timi differenceka ama waxa u dhexeeya bal horta marka ugu horreysa nooga warran run ahaan waxay isku jiraan cirka iyo dhulka marxaladdii berigaa lagu jiray iyo maanta halkaa waxaa iga muuqda daa'uud xuseen xiirey waxyaabaha cajaa'ibka ahaa ee garoonka timcadda markii idaacaddu taallay iyada oo shaqaalaha raadiyo hargeysa aanay haysanin mushahar aanay haysanin qalab aanay waxba haysaninba ilaa intay ku gaadhaan duhurka iyagoo gaajoonaya oo aan baabuur haysan ayay u lugayn jireen xaafadaha magaalada hargeysa qaar baa airboort ka iman jiray qaar baa idaacadda xagga ka soo iman jiray halkaa haddana muwaadiniinta iyo runtii raggii qiimaha lahaa ee raadiyo hargeysa ee ka shaqaynayay waxay ahayd runtii marxalad aad iyo aad iyo aad u adag laakiin ay kaga soo gudbeen ay ku soo shaqaynayeen waddan jacayl waxay ahayd xilli aynu soo gallay dalka innaga oo muxuu ahaaye halgan dheer soo gallay run ahaan anugu berigaasi aan ku soo biiray raadiyo hargeysa waxaan ka bogsaday dhaawacii iga soo gaadhay xorayntii dalka magaalada berbera ayaan ku dhaawacmay anigoo ka tirsanaa guutadii koodbuur marka markii dambe runtii hawlo badan baan qabannay dalkeennuna runtii muxuu ahaa wax badan ayaa muxuu ahaa ka hirgalay oo muddadaasi muxuu ahaayey si istaba socda waad ogtahay 3 sannadood way la soo jaan qaadayeen wariyayaashu iyo wasaaradda warfaafintuba horumarka dalkeenna marka ilaahay mahadi weeye maanta heerka aynu ku sugannahay iyo haddaan dib u jalleeco marxaladda aynu soo marnay runtii muxuu ahaayey waa yacni wax lays barbar dhigi kara maaha ilaahay mahadi baynu ku jiraa waan rajaynaynaa halkaa iyo halka wanaagsan gaari doono mustaqbalka dhow taasi waa tii wasaaraddeena iyo howlaheedii waynu arkayna maanta halkaynu joogno waxaad iga warantaa maanta diblomaasi baad noqotay hore waxaad ogaan jirtay wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha dibadda maanta qaranka jamhuuriyadda somaliland ee halganka ugu jira inuu ictiraaf ka helo beesha caalamka ayaad u joogtaa meel muhiima bal waxaad ka warantaa howlaha aad ka hayso bruxelles iyo midooda yurub iyo sida loo arko qadiyaddeenna run ahaan waxa weeyaan saa tilmaantay midooda yurub waxa weeye waa xarun aad iyo aad muhiim u ah waxa weeye xarunta ay muxuu ahaa runtii looga arrimiyo waddamada midooda yurub gaar ahaan intan 27 dawladood ee xubnaha ka ah anigu xoog waxaan runtii ula shaqeeyaa baarlamaanka midooda yurub xilligii xukuumaddii Siilaanyo waqtigeedii u dhamaaday wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda markaan ahaa waxaa markiiba aan shaqo ka helay midooda yurub oo baarlamaankaasna la taliyo ahaa markii dambena wasaaraddeena arrimaha dibadda ayaan runtii ku soo biiray oo la taliyaanka xagga xafiiska xagga sanadkii horena waa kii madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya mudane Muuse Biixi Cabdi ee magacaabay inuu noqdo wakiilka Soomaaliya halka uu joogo Soomaaliland runtii hawlo badan baan wadnaa maadaama aan khibrad shaqo oo meesha aan muxuu hore uga haystay iyo muxuu ahaa xidhiidho badan lahayn waxyaabo badan baa runtii taasi naga saaciday dhawaan waxa runtii aan ka faraxlanay waxa jiray ololihii baarlamaanka xubnaha baarlamaanka midooda yurub oo la dooranayay 704 xubnood oo laga soo kala dooranayay 27 dawladood kuwaas oo runtii ku Soomaaliland taageersan aan taageerinay jaalidaheennana aan wada shaqaynaynay ku nool wadamada kala duwan ee midooda yurub arrintii marka 9 bishii aan ku jiro ay runtii muxuu ahaa hawshaasi dhamaatay oo doorashada dhacday iminkana waxa ku jiraan sameyntii gudiyada baarlamaanka iyo waxyaabaha waxaanay dooran doonaan gudoomiyihii baarlamaanka kadib fasaxii samarka ayaa la geli doonaa fadhiga ugu horeeyay imika ay yeelan doonaan waa 5 bisha Sebtembar soo socota markaas ayaan hadii lahay ka dhigo saaxiibadii Soomaaliland xildhibaanada cusub ee la soo doortay kuwii hore ee aan saaxiibada wahayn kuwii ku guuleystay in markale la doorto iyo kuwa kale iyagu haray muxuu ahaa boosaskoodii muxuu ahaa dadka buuxiyay hawlahaas baan muxuu ahaa doonayna inaan xiriirkooda adkayno run ahaan Soomaaliland waxa loo arkaa dal nabdoon dimuqraadi ah geeska Afrikana ka ifaya duniduna taas bay runtii taageeraysaa in halka laga sii wado dadaalka reer Soomaaliland muujiyeen doorashooyinka xorta ah ee isdaba jooga ah nabadgelyada runtii muxuu ahaa kaalinta muhiimka ah aynu ku leenahay xasiloonida dunida ama geeska Afrikaba markay timaado la dagaalanka burcadbadeeda kooxaha argixisada ah iyo abaabulada maartay kooxaha dambiyada hubaysan dambiyada abaabulan runtii Soomaaliland uga shaqeyso ka hortagooda iyo xiriirka la leedahay wadamada dariska ah ee nabadgelyada iyo iskaashiga ku dhisan intaba dunidu way nagu tixgelisaa waxaan rajaynayaa runtii muxuu ahaa markaa inaan halka hawsha ka sii wadno
rajooyin badan oo fiican runtii way soo muuqdaan waxaa jiray saacadka ambassador iminka ku-xigii midigta fogaha ayaa loo badinayaa inay wadamadii Yurub ka noqdaan wakiilo ay ama u noqdaan xildhibaano kooxaha midigta ka iminka inoo soo baxaya dad badan ma ku leenahay run ahaan kooxaha midigtu waa kuwa aniga aan si shakhsi ah runtii wada shaqayno run ahaanna waa kuwa dhiiranaanta leh tusaale ahaan UK markii ay ka baxaysay midowda Yurub waxa runtii hogaaminayay oo inay ka baxdo ku qasbay wuxuu ahaa kooxda xagga midig runtii Nigel Farage hogaaminayay Nigel Farage oo runtii saaxiib Somaliland la ah run ahaan mabaadi'diisa iyo mowqifyadiisa qaar yani anagu lama qabno laakiin waxaanu aaminsanahay shakhsiyan saaxiib kastoo Somaliland yeelanayso ama midig ha noqdo ama bidix ha noqdee inaanu soo dhaweyno marka xilligaasi oo baarlamaanka midowda Yurub oo ay UK ku lahayd 73 xildhibaan oo runtii iyagu u badnaa qolada UKIP loo oran jiray Nigel Farage haystay waa kuwa UK ka saaray muxuu ahaa midowda Yurub inaguna waxaan runtii jecelahay in qolada inagu dhigana Soomaaliya aan ka baxno oo waynu ka baxnay oo shaqaba isku malihin laakiin haddana once for all aynu muxuu ahaa runtii kala faataxaysano marka xubnaha midigta ah la doortay runtii muxuu ahaay xiriir badan wanaagsan naga dhaxeeya waxa jiray imka maanta oo kale markaynu eegno wadamadii doonayeen wax noqdaan xildhibaanadan ka soo baxay loo codeynayo ayaa inta badan loobinka laga galaa for example imka yuhuud oo kale markay adduunka waxay ku haysataa in xildhibaanadan soo baxay saameyn ku yeeshaan maanta haddii reer Somaliland nahay waynu ku badanahay wadamada Yurub iyo Mareykanka dabcan waraaqo dhalashooyin badan oo ku haysataan xildhibaanadaad soo saaraysaan arrinkaa ma ka fikirteen inaad saameyn ku yeelataan si xildhibaanka fadhiisanaya golaha sharci dejintu uu saameyn ugu yeesho sidii dalkeena u heli lahaa ictiraaf si uga mid noqdo beesha caalamka wali hawshaa ma ka fikirteen oo ma isku wacyigeliseen dhammaantiinba dadka reer Somaliland ee dibadda joogo aad iyo aad 6 bilood u dambeeyay runtii hawshan ka shaqeynay taas ahayd oo jaaliyadaha reer Somaliland ee ku dhaqan wadamada midowda Yurub 27 dal ee xubnaha ka ah way is abaabulayeen waxaanay runtii codkooda siinayeen oo ay weliba la ololeynayeen xildhibaanada Somaliland saaxiibka la ah iyo kuwa ballan qaaday in Somaliland muxuu ahaa taageeri doonaan muxuu ahaay qadiyadeeda marka arintaasi 6 bilood u dambeeyay hawsha ugu badan ka shaqeynay taas ahayd xildhibaano badan oo runtii muxuu ahaa jaaliyadaha taageeriyeen way ku guuleysan doorashadan marka xiriir fiican baa naga dhaxeeya waan rajaynayaa hadii Ilaahay ka dhigo dhawaan inaanu muxuu ahaay shaacino sida aan horeba UK uga sameynay saaxiibada Somaliland ee baarlamaanka midowda Yurub waxaa tahay kaysar diblomaasi sare oo ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda maamulkeeda ahaan jiray in bulshadan maanta reer Somaliland waxay aad ugu hanqaltaagaysaa MAU-gii madaxweynaheena iyo ra'iisul wasaaraha Ethiopia ay soo galeen goor muddo dhalaya waa dadka indhow garadka iyadoo laga dhergsan yahay in hawlo badan ay jiraan degdeg badan aanu jirin wax badan laga baaran degayo in maanta way ku dhowdooday muddadii loo sameeyay bisha koodeedii bay sanadka maalintii labada madaxweynaha ra'iisul wasaaraha soo galeen hawshii ka wasaaradda arrimaha dibadda intee inoo hadhay goorma saxiix oo rasmi ah imanaya golayaasha la horkeenaya bulshadeena maanta iyadoo waliba ciidda maalinta saddexaad aan ku jirno maxaad u lahayd sida ay farxadda uga qayb qaataan run ahaan marka koowaad heshiiskani waxa uu ahaa runtii heshiis jebiyey derbi weyn oo nagu gudbanaa 3 sannadoodaynu jiray waxa uu ahaa runtii tallaabadii ugu weyneed uguna muhiimsaneyd ay qaaday xukuumadda Jamhuuriyadda Somaliland oo horseedka runtii muxuu ahaa ka yahay madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi arintaasi runtii waxa ay keentay dunida oo dhan in ay indhaha Somaliland ka soo jeediso waad ogtihiin luqad kasta iyo saxaafad kasta dunida ka jirta heshiiskan waxa weeye waa lagu soo bandhigay weligan hore umaynaan helin muxuu ahaay exposure caynkaas oo muxuu ahaa runtii dunidu ay indhaha ku soo wada fiirsay arinta maanta jirta waxa weeye meel fiican bay maraysaa guddiyadeennii muxuu ahaayey hawshan ku shaqada lahaa si fiican bay wadaan waxaana runtii ay ku dhowdahay runtii adigba waad ka warhaysaan in waqti aan fogeyn hawshaas ay soo dhamaystirmi doonto laakiin waad ogtihiin miisaanka iyo muxuu ahaay culayska ay leedahay hawshaasi ka fiirsashadeeda isla meeldhigiddeeda waxaa jirta runtii guddi khubaro ah oo madaxweynuhu magacaabay oo si fiican hawshaa uga shaqeeyey waxaan rajaynayaa dhowaan in ay runtii soo muuqan doonto dadweynuhuna si fiican ay indhahooda ugu arki doonaan aqoonsiga Somalilandna muddo 30 sannadood kadib oo aynu soo halgamaynay soo kaca ku faynay
in aynu gaari doono foodana inagu soo hayo dhowaan haddii ilaha raxmaankii uu raalli ka noqdo. ambassador waxaa jira in markaad iska socotay aanad waxba hawlayn cadaawad badan ma haysatid meelhido cadow badan ma yeelanaysid laakiin markaad wax noqoto ee aad dhaqdhaqaaq badan samayso ee diblomaasiyadaada ay fogaato cadaawad badan baa dhalanaysa oo cadow badan oo aanad filayn baa kugu soo baxaya oo diblomaasiyad adag oo badan baa loo baahanyo lagaga hortago for example waad arkaysa maalintii madaxweyneenu saxeexa MAU-ga quraha soo galay inta goore dowladdan jilcsan aynu dariskana Soomaaliya uu madaxweynahooda beesha caalamka ka qayb galay waddamadii kale cadowgeena oo dhan ay banaanka soo istaageen maxaa inooga meel yaala waliba idinkoo arrimihii dibadda wasaaradahan maxaa idinka meel yaala cadowga aynu yeelanayno ee goobaha caalamiga aad iska hor imanaysaan inaad kaga hortagtaan. run ahaan arrintaas waa su-aal iyo aad muhiim u ah waa hubaal weeye. horta cadaawadda Soomaaliya ma raba mid runtii hadhay maaha. dad badan waxaa laga yaabaa inay u haysteen in Soomaaliya markii aanu ka adkaanay 1990 taliskii iska dulqaadnay inay halka ku hadheen. xukuumadda Soomaaliya iyo xukuumadihii kala dambeeyay mar walba cadaawadda reer Somaliland iyaga muhiimadda koowaad bay ahayd. waad ka war haysaa markii aynu galaynay heshiiskii DP World dagaalka ay galeen baarlamaanadoodii iyo guddi ay muxuu ahaa ka hor yimaadeen oo ay ku tilmaameen sharci darro aan hirgeli karin haddana indhahooda oo shan ah way naga hirgelinay. DP World waa taa shaqaynaysa dikadeenni way naga ballaarinay heer caalami ka dhignay wadooyinkii jidadkii isku xidhayay Somaliland ilaa Ethiopia way naga dhisanay. imika cadaawadda Soomaaliya ay qaadeen taa mid la mid ah uun bay runtii muxuu ahaa ayuu ku dambaynaysaa wax alla wax ay ka faa'iidayaan oo xumaan iyo kala fogeynta ummadda reer Somaliland iyo Soomaaliya dariska ah kala fogeynteeda mooyaane wax ayuu ka faa'iidayaan ma jirto. tallaabo kastoo ay qaadeen iyo meel kastoo ay mareen guuldarro ay kala yimaadeen. Somaliland waa dal isku kalsoon waa dal shuruuc leh oo nidaam leh oo madaxweyne iyo xukuumadda doortay leh waa dal isagu go'aankiisa gaadha go'aankiisana gaadhayay 3 sano ugu dambeeyay ma aha dal loo yeedhiyo waxa uu doonayo. innagu ma faragelino wadamada dariska ah xiriir fiican baa naga dhaxeeya waxaan rajaynayaa xiriirkaasi mar walba inuu taagnaado. marka ay timaado arrinta difaaca Somaliland ciddii soo faragelisa hadday tahay dagaal siyaasadeed mid dhaqaale iyo mid military intaba diyaar baanu nahay. waxaan leenahay awood ciidan aan ku ilaashano xuduudaheena badeed cireed iyo dhuleed. waxaan leenahay awood dhaqaale awood sharci iyo awood shacbi oo ku difaacano danaheena reer Somaliland. marka waxaan runtii u arkaa dhaqdhaqaaqyada ay Soomaaliya sameynayso wax guuldarro amooye inaan guul ka keeni doonin sidii markii horeba aanay wax guul uga keenin arrintii DP World ay soo hortaageen. marka annaga waxa weeyaan runtii warwar badan kama qabno meel kastay maraan iyo meel kasta ka hadlaan annagu waan ognahay dariiqan ku soconno waan ognahay higsigayaga iyo hamigayaga iyo himilada shacbiga himiladooda waan ognahay. waxaan ka madadalin doonaa oo dhawaan la arki doonaa Somaliland oo ah qaran la aqoonsan yahay dunidana muxuu ahaayay miis la soo fadhiisata isla markaa la aqoonsaday indhahooda oo shana. waxaa kale oo runtii muhiim ah shalay waxay lahaayeen ma qabiil baqar la dagaalami kara markii SNM ay la dagaalamisay xukuumaddii xoogga badneed Siyaad Barre markii dambe aynu dalka qabsanayna waxay ku hadaaqi jireen ma iyaga is xukumi kara. imikana waxa ay ku dambeeyeen inay yidhaahdaan miyaa la aqoonsan karaa intaba sidaan indhahooda oo shana u tusnay ayaan tan u tusaynaa. kaysar waxaa jirta in su-aasha ugu dambaysan jecel aan ku weydiiyo maanta adu waxaad tahay safiirkii midowga Yurub dhowr iyo 20 waddan baa ku hoos yimaada TV qaranka maanta shaashadiisii oo Yurub iyo adduunka laga daawado ayaad fadhidaa. Ingiriiska imika wax ka socota dhawaan ka dhacaysa doorashadii golayaasha maxaad faraysaa bulshadeena halka ku dhaqan si ay ula soo baxaan wakiilo dalkeena u dooda oo yiraahdo Soomaaliland waa qaran jira oo maanta Ethiopia waan dhahaynaa Yurubna waa ka dhaadhaya iyadoo imka waan Ingiriisku inuu dad fiican ku leenahay si ay codad badan inoo helo oo baarlamaanka Ingiriisku Yurub iyo adduunka soo dhigo inkastoo kamid ah wadamada faraha oo adduunka maxaad farileed maanta jaaliyadaheena jaaliyadaha reer Somaliland waxaan farayaa gaar ahaan jaaliyadaha reer UK inay tahay xilliga ugu wanaagsan xilligani muxuu ahaa Somaliland wax tari karaan. waxaanu ku leenahay baarlamaanka Ingiriiska saaxiibo run ahaan hal tusaale ayaan siinayaa. 2005 imika haddaad Google garaysan waa arki doontaan Kerry McCarthy oo ah Bristol laga soo doorto anigoo kaysar baa waraaqaha la tuuriyay iyadoo muxuu ahaa oo la ololeynayay iyadoon xildhibaan ahayn ilaa imika waa xildhibaan waxaana ka mid ah saaxiibada Somaliland.
marka muwaadin kasta oo reer Somaliland ah oo ku nool dalka Ingiriiska waxaan leeyahay xildhibaanadii la shaqeeya kuwa Somaliland muxuu ahaayay ogol ee taageeraya la shaqeeya isla markaa 4 July oo doorashadu dhacayso waxaan rajaynaynaa in saaxiibada Somaliland ay imika haysano 2 laab iyo 3 laab baynayna helo waxaan leeyahay muwaadin kasta oo reer Somaliland ah xisbi kasta iyo xubin kasta oo doorasho u socoto ka hor timaada waxaad hor dhigtaa maxaad Somaliland u qabanaysaa aan codkayga ku siiye aan kula ololeeyo maxaad Somaliland u qabanaysaa marka waxaan leeyahay muddada dhowrka usbuuc ah inoo hadhay 4 July oo doorashada UK ay dhacayso waxaan idinka codsanayaa qof kastaaba xil dheeraada anigoo ogsooneed awal bedel jirteen in xil intii ka badan saartaan saaxiibo badan oo Somaliland leedahay inay noo sameeyaan inta daawadayaal waxaynu ugu barnaamijkii gaarka ah nasiibka u yeelanay in aanu ka qabsano Kaysar Cabdullaahi Maxamed oo ka mid ahaa wariyaashiina la bilaabay Radio Hargeysa